magaalada Gabiley waxaa ka dhacday munaasabada shaacinta musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley uga tartamaya beelweynta Gurgure Ismaaciil Daahir Axmed Aare. xafladda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro, xubno culus oo xisbiga ka tirsan iyo marti sharaf kale kuwaasi oo lagaga hortagay galbeedka magaalada Gabiley si xisbiga wadani loo tusiyo xuduudda beesha Gurgure leedahay. munaasabadan oo ka dhacday Taaj Plaza ayaa waxaa isqabatay ilyarta boqolaal qof ayaa ka soo qayb galay oo taageeraya musharaxan. xafladan waxaa laga dheehanayay sida beesha Gurgure ay uga go'an tahay in cod aqlabiyada ay ku soo saaraan musharax Ismaaciil Daahir Axmed oo ah aqoon-yahan dhalinyaro ah oo jaangooyin kara dhismaha adeegyada horumarinta. kooxaha dhaantooyinka ayaa madasha ka jeediyay heese ka turjumaya baahida loo qabo in musharaxan ka tartamaya xisbiga wadani la soo saaro. ugu horeyntii odayaasha, haweenka, dhalinyarada iyo xubno ka tirsan xisbiga wadani oo madasha xafladda shaacinta ka soo qayb galay ayaa soo dhaweeyay musharaxan daada yar ee golaha deegaanka u tartamaya. musharaxeena Ismaaciil Daahir Axmed waxaan ka soo xulay beesha ballaaran waxaan u soo xulay xisbiga wadani. musharaxayaga Ismaaciil Axmed Aare ha guulaysto. aad baan kuugu ducaynayaa inaad kursiga ku fadhiisatid oo soo baxdid hiil iyo hoob waanu kula garab taaganahay inaynu guddoonsiino musharaxeena Ismaaciil Daahir Axmed oo ah nin ku sifoobay aqoon iyo karti iyo waayo-aragnimo inuu gudan karo xilka musharaxa boqoran ee beesha Gurgure ay u soo xulatay inuu u tartamo golaha deegaanka gobolka Gabiley degmada waa Ismaaciil Daahir Axmed ayaa maanta loo qabanaya xafladan xisbigana inuu faamka hore raaco balaamiin noo dhaadadiyo waraysan weeyaan. Ismaaciil hambariyo wada haybadiyo salaam Ismaaciil hambariyo wada haybadiyo salaam gacantooya gacantada igaga qabo. waxaan u yara kacay keliya inaan xilkii anigu aanu hayay beesha inuu igala wareegi doono Ismaaciil Daahir Axmed Aare oo maxaan ku dhahdaa aqoon-yahana. ilaahay waxaan uga baryayaa uga rajaynayaa ninkan musharaxa Ismaaciil Aare in ilaahay ku guuleeyo idinkana idinku soo asturo. doorta xisbiga wadani waa Gurgure, xisbiga wadani la maqashay waa Gurgure. magaalada la yiraahdo Dirdhaba waxa la yiraahdaa Gurgure Ciisa, xisbiga wadani waxa la yiraahdaa Gurgure la yiraahdaa oo tasaawo socda. laandheero waanu nahay mid naga laandheeraysan ma jirto haddaanu nahay beesha Gurgure. runtii ka gacayl iyo farxad baan ku soo dhaweynaynaa anaguna ku qaabilaynaa hadalka waxa ku jirta naga gudoomiya Ismaaciil waxa kana soo mariyayba waa inuu ka gudoomiyo Ismaaciil taa ogaada horto gudoomiye gobolkan wuxuu muddo dheer raadinayay gobolnimo halka waadigii ka ballan qaaday waxa tiri in doorashadii 2017 markaynu ku jirnay waar anigu gacantayda ku jira qalankii aniga saxeexayo gobolnimada Gabiley maalinta laynama maqlin waxa rajeynayay inay maanta maqli doonaan reer Gabiley sidaa u soo saari lahaydeen codka maxaa ku dhaca u siin lahaydeen xildhibaanka guushu horta marka u horeyso horta waa taa Gabiley waxa weeyaan asalba meel horta ay madaxdu ka tarsato oo intay ku dhaxdo reer wada oo la oran jiray barigii colaadii oo qoro wada socotaba intay ka tarsato iska dhaafta xisbigan wadani ma noqonayo intay idinka darsato idinka dhaansato inay iska dhaaftay waa xibsi degaya oo hoos idin eegaya. kolley kelmadda laangaab in badan baa lagu celceliyay aniguna ayuu baan hoo dadka laangaabka lagu tiriyaan ka mid ahaa laakiin waxaan leeyahay farteena aynu ku noqono laandheere taasaynu ugu hiilin karnaa qof kasta oo la leeyahay laangaab waxaynu ugu hiilin karnaa farteena oo aynu laandheere ku soo bixi karnaa. horta Gurgure laangaab ma aha Cabdiraxmaanna maanta nin aan barayna Gurgure ma waa isaga Gurgure ah waa nin reer sheekha weey waxay galaan iyo waxay gudaan intaba u yaqaan isaga aniga iga yaqaana. musharaxa golaha deegaanka Ismaaciil Daahir Axmed Aare ayaa dhankiisa sheegay inuu dhammaystiri doono rajooyinka bulshada ee horumarka ku salaysan. beeshan ballaaran ay soo xulatay inaan musharaxooga golaha deegaanka
soo socda noqdo insha Allah waxaan idin sheegayaa inaan idinku hogaamin doono sinaan iyo cadaalad aanan fulin doono adeegyada bulshada ee asaasiga ah aan wax badan ku soo kordhin doono xildhibaanada cusub ee soo socda iyo golaha deegaanka ee cusub ee aan ka mid noqon doono insha Allah inaan wax qabad muuqda ka soo kordhin doono si adeegyada asaasiga waxbarashada caafimaadka biyaha oo gobolkeena Gabiley aad iyo aad ugu baahan yahay oo loo baahan yahay in la helo biyo ku filan oo gu'iyo jiilaal dadku ay manaafacaadsadaan guud ahaan dadweynaha gobolka Gabiley waxaan idinka fadhiyaa insha Allah inaad idinkuna codkiina aad ila hubsataan si hamigayga siyaasadeed aniguna aan uga dhaliyo oo aan u rumeeyo igu rumoodaan waxa ay haysaa fartiina ay haysaa fartiina halka ay u geynaysaan markaad fartiina u geysaan aniguna si hufnaan ayaan idinku adeegi doonaa insha Allah ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa madasha ka cadeeyay in xisbigiisu si rasmi ah u aqbalay musharaxan daada yar Ismaaciil Aare marka labaadna aan ku hadlayo magaca xisbiga waxaan suldaanka iyo haweenka iyo dhalinyarada beesha u cadeynaynaa inaan idinka guddoonay Ismaaciil Daahir Axmed oo xildhibaan u sharaxan golaha deegaanka ee degmada doorashada Gabiley hore waxa uga soo baxay xisbigan xildhibaan Cali Shiine oo hadda xilka ku wareejinaya Ismaaciil anigu sida la xushay waa beel ballaaran oo Soomaaliland degta dalka aynu jaarkan Itoobiya degta waa beesha Soomaalida oo dhan deegaanka u ah caasimadda labaad ee Itoobiya ee Diridhawa waatiinan toogan ka tiri annaga ay dhagamadan dheereysno 8 xildhibaan baan ka soo saarnaa Diridhawa marka wadadkii loo baahnaa in shaqada ay soo sharaxaan waana dadkeenu ka sugayno in isbedel khayr qaba ay keenaan maadaama ay xildhibaankii hore soo saarteen kana ina soo saaraysan hadii la yiraahdo waa isku magaceenu isku lamaayay gurgureeyo wadani hadii la ka dhigo waa Jaafar Awil Herari telefishinka sahan magaalada Gabiley